mu'minku markuu qabriga ka jawaabo ayaa samada laga dhawaaqay oo la odhan doonaa an sadaqa cabdii addoonkaygii run buu sheegay afrishuuhu min aljanna firaash jannada ka soo qaadoo u gogla walbisuuhu min aljanna dhar jannada ka soo qaadoo u xidha waftaxuu lahu baaban ila aljanna albaabna jannada uga fura jannada halkaa ha ka daawadee baa la odhanayaa dhulkaad ku celisay meydka dhulkaan ku aasnay minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nuciidukum halkaad ku aastay waa dhulka dhexdiisa weeyaan inna kitaaba alabraari la fii cilliyiin jannaduna waa fowqa 7 samaawaat halkaasaa qofka mu'minku jannadiisii ka daawanaya sida innakuba aaladdan yare imminka aan haysanee moobeelka ijaabadda aad ku haysatid qofka adduunyada halka ugu dambeeya jooga maqal iyo muuqaal halka aad uga daawanayso qaaradda amriika qofkii joogay ayaad adigu halkaa jooga maqal iyo muuqaal aad ka wada hadlaysaan mu'minka qabriga dhexdiisana nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa inoo sheegoo yidhi qabriga dhexdeeda daaqad looga furayaa halkaa buu ka arkayaa jannadiisi iyo naciimtiisi iyo xurulcayntiisi markaasaa la odhan doonaa iska seexo qabrigu waa meesha mu'minku ku seexda weeyaan maxaa qabriga loogu dhex seexanayaa le'anna jannada dhexdeeda hurda ma jirto annawmu akhulmawt wa ahluljannati laa yanaamuun baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam geeridu dhimashadu hurdadu waa geerida walaasheed ahluljannuhu jannada hadday galaanna ma seexanayaan buu rasuulku yidhi adduunyadan maalintiina waad foofi waa macaash kasbi xalaalaad ka soo shaqaysan waad cibaadaysan waad soo daali habeenkii baad yar seexan si daalka lagaaga bi'iyo ahluljannuhu maxayna la seexanaynin waxay la seexanayn waan kuu sheegayaa laa yamassuhum fiihaa nasab wamaa hum minhaa bimukhrajiin baa ilaahay yidhi ahluljannuhu jannada haddii ay galaan jannada dhexdeeda wax tacab oo daal uu soo gaadhayaa ma jirto jannadaa ay galeenna kuwa ka baxaya ma aha marka ma badaalayaan ma walwalayaan ma walbahaarayaan ma gaboobayaan ma dhimanayaan ma bukoonayaan waxay tabanayaan ma jirto waxay niyadda ku qabtaan waa la hordhigayaa marka wax daalinaya oo ay u baahdaan inay seexdaan si daalku uga baxo maba jirtaba marka meesha mu'minku ku seexanaya waa qabriga weeyaan wanufiqa fi الsuuri faidaa hum min alأjdaaثi ilaa rabbihim yansiluun qaaluu yaa waylanaa man bacaثanaa min marqadina haadaa maa wacada الraxmaan wasadaqa almursaluun waa ka ilaahay jalla wacala fii suurati yaasiin inoogu sheegay suurtaan afuufaynaa baa ilaahay yidhi israafiil baa suurta afuufaaya deedna dhulkay ka soo bixi doonaan deedna xagga ilaahay baa loo soo ururin doonaa markaasaa qofkii muuminka iimaanka lahaa waxa uu leeyahay waa maxay buu leeyahay iyaa hurdadii naga soo kiciyey waan jiifnay waan hurudnay hurdada maxaa naga soo kiciyey buu leeyahay markuu arko khalqigii oo banka qiyaama sidaas ku dhex socdana wuxuu leeyahay maanta waa maalintii nebiyadu ay noo yabooheen ilaahay iyo rusushiisuna run bay noo sheegtay buu leeyahay maanta waa maalintii lanoo yaboohay yowma alqiyaama weeyaan marka noloshan adduunyadu waa maalin iyo habeen nolosha qabrigu waa habeen nolosha qiyaamuhuna waa maalin keliya nolosha adduunyadu wajacalna alleyla waannahaara aayatayn وآية لهم الليل نسلخ منه النهار با إلهي يدي آية الليل آية النهار نولشان الدنيا دان كن نولهي ومالين يا هبين مالين تينا واد فوفيسا هبين كينا واد نسانيسا واد سيحانيسا قبرك هدي لقلنا وهل هبين ويان صبيحتها يوم المحشر وبرق يقولنا ومالك قيامها ويان يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر نعم الدنيا انت اللي جوغو واحد جوغي سوا مالين يا هبين قبرك هدي لكو ديغنا وهبين كليا هبين كاسو النبي نوشي يري قبرك والله مدويان أما وروضة من رياض الجنة إما حفرة من حفر النار مؤمن كينا بيربرها جنة كمدا لوغا ديغيا قال كينا waxa looga dhigaya godgodod kanaarta kamida looga dhigaya nina uu hurda oo 70 sano adduunyada uu soo daalay ayaa la leeyahay halka ha ku daalo ha ku nasto min aadam calayhi salaam laga bilaabo ila joogadeena wixii adduunyada bini aadam soo maray caalamul barzakh bay ku jiraan inna way hurda way nasanaysa oo waxa qabriga dhibaato kuwa kale ku haysta war uma hayaan way hurdaan
مالك قيامه صورة الله عفوفه بقبرك كصبح دونان ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا حسرة في نشورهم وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها ذاتك أدونك دوشيد لا إله إلا الله إهل كيغا النقضة الله ينقدقو قبرك مركي قلان كوكليوب مايان مالك قيامها مركي صوبحان حسردي الندامي مرق لي أركي مايان waxaad moodaa buu nebigu yidhi inaan u jeedoon arkaayo ayagoo qabuurihii ka soo baxay oo ciidda intay iska hurgufeen ay leeyihiin alxamdu lilaahi aladii adhaba canna alxasan ilaaha waxaan ku mahadinnaa naxdintiiyo murugtii annaka naga qaaday rabbigay waa kii dhaafitaanka badnaa ee shakuurka ahaa weeyaan ee afcaasha wanaagsan ee addoonku la yimaado raalliga kaga noqday weeyaan dadna way soo baxayaan yowma alqiyaama maalinta sara jooga waa yoom qur-aanka yoom buu sheegay habeen ma sheegin yowma laa tamliku nafsun linafsin shay'a yowma yanduru almar'u maa qaddamat yadaah yowma laa yanfacu maalun walaa banuun yowma tabyaddu wujuuhun wa taswaddu wujuuh yowma aljamci yowma altagaabun yowma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin yowma altagaabun yowma altaamma yowma asaakha habeen ma maqlaysid habeen ka doondoon waa kaase qiyaamaha markuu ilaahay ka warramaayo ومالين وين هبين ملا ومالين كليا وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم إلهي تبارك وتعالى يوم قاسنا قرآنك إلهي نوغو الشيقي وكنتم كنوا صندون ابن عباس رضي الله عنهما مفسر كي قرآنك وحو كفسروا يلي أفرتن كنوا صنوا على الجوغي 10 kun oo sanana xisaabta ku dhamaani doonta buu yiri 40 kun oo sano ayaa sida loo taagnaan doonaa 10 kun oo sanana xisaabta ku dhamaan doonta nin Arabi oo reer baadiya ayaa saraka cuyr ya rasuulallah maalinka qiyaamaha khalqiga ayaa xisaabi doona markaasuu ilaahay baa xisaabi doona rabbiga xisaabi doona markaa ninkii Arabiga intuu sii jeestay buu yiri najawna wa rabbil ka'ba ka'bada rabbigeega ayaa ku dhaartay waan badbaadnay buu waan nabad galnay buu markaa buu nebigu yidhi soo noqo si aad ugu nabad gashay buu ka yidhi bal ii sheeg wuxuu yidhi waa kariim ilaahay waa kariim hadduu doono iska kaaya cafin buu yidhi ma cid baa isaga qabsanaysa buu yidhi waa kariim kariim ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم بنبي إنك ماذا مجرو حدو جرى نبو رسول كل أي ربي جيبوا قيامها الله كل مدونا الدونك يا ربي جي مالين عيد وكل أفعلين يسا مجرته لغة عربية الله قوضها الله يا حاجة مدكتو ايجي عمل جيسيبو أركي حاجة بدحدو ايجي عمل جيسيبو أركي هورتيسو ايجي نارتيبو أركي فاتقوا النار ولو بشق التمر ابو نبي قول عليه الصلاة والسلام نارتا قاشان كسميست ابو نبي قول قاشان كي يشا تمر جيحيد وصدقاء عضو بحسان كولي نقطنا تمر جيحيد ولو بشق التمر فمن لم يجد فبكلمة طيبة ابو نبي قولي تمر جيح تمر اني كان هلين ابو نبي قول ياي هذا الكوناكسن هكو هذا كلمة وناكسن كو هذا سبحان الله وكلمة وناكسن الحمد لله وكلمة وناكسن أمر بالمعروف وكلمة وناكسن ذكرك وكلمة وناكسن استغفرت وكلمة وناكسن لا إله إلا الله وكلمة وناكسن ولا القاقا مسلم قد خيرك عضو الشيكتا وكلمة وناكسن منكرك وضو مدى كريبتانا وكلمة وناكسن كلمة الطيبة صدق أبو نبي قوله عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين آيات لي مرقو النبي يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم مالك قيامها دادك والله سو حشرين دونا أيكو عقاقا أو بلا درأة أو كبلاءانة أو مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام أيكو عقاقا كبا موتان درنا موتان
qof walba baaradiisii baa ku taalla waa sidii lagu dhalay weeyaan markaasay caaisha tiri radiyallaahu canha almu'miniin rag iyo dumar maalintaas maa laysdhex soconayaa haa waa laysdhex soconayaa qofku qofka kale muunan eegayn markaa buu nebigu yidhi yaa caaisha qofku qofka ag socda maalintaasi ma nin baa ma gabadh baa ma naag baa maba eegaya buu rasuulku yidhi